hooyo Canab Faarax Jaamac iyo Aaba Maxamuud Maxamed Ciise waa lamaane degan duleedka galbeed ee magaalada Garowe. Qoyskan oo ka kooban labada waalid iyo 3 ilmood oo ay dhaleen ayaa ku nool duruuf adag. Hase ahaatee wax walba waa qadar Rabbi. Hantidu ma ahan mid si gaar ah cid loogu manaystay. Faadumo Maxamuud Maxamed oo ah gabar yar oo 3 sano jir ah ayaa ka xanuunsanaysa labadan waalid waxaana ku dhacay xanuun caloosha ah oo biyo ayaa fadhiya. magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso ayaa loo geeyay baaritaan caafimaad. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in qalliin caloosha ah oo biyaha looga soo qubayo ay u baahan tahay Faadumo. biyaha bay sheegeen kuwa Muqdisho ugu dambeeyay, kuwa Hargeysana biyo ay sheegeen waxay yiraahdeen waxa lagu qali karaa meelaha fog Ardiso waaba garan waayeen wuxuu yahay biyo bay sheegayeen. marka waxaan ka codsanaynaa awoodiye intay noqotay Soomaaliya noqotay awoodiye. Itaalkii reerkan ma ahayn mid dhaafsiisan meelaha ay geeyeen gabadhooda. Aaba Maxamuud waxa uu ii sheegay in hadda uu baaga muddo yahay. Ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ay qoyskani alla ka sakow u magan yihiin sida ay ii sheegeen. Booqasho gaaban maraan ku gaaray gurigooda oo nus saac aan u lugeeyay. Dhaqaatiirtu biyahaasi wada sheegeen laakiin dalka dibadda wax laga qaban karaa weeyaan. kuwa Muqdisho anaga dibadda ma sheegin meelka iyaguna wax kama qaban karayaan biyo bay sheegeen kaliya ma garata. marka gabadhan waxay rabtaa muslimiin badan inay u gurmato insha Allah oo wax laga qabto hadii wax laga qaban karo Ilaahay baana daawada leh. marka anagu intaasaan ka codsanaynaa idina dadaalo nimo shaqaalaha batiin hadin idinku yahay. marka hadda daan soo booqateen aad baan idin mahadinaynaa. Ilaahay baa mahad leh. hooyo Canab Faarax Jaamac waxay ii sheegtay xilliyada dambe ee habeenkii in Faadumo ay la soo kacdo taah iyo oohin xanuunka caloosha ka haya awgeed. Bismillahirrahmanirrahiim. gabadha yarta oo xanuunsan iyadoo 6 bilood jirta calooshaas lagu arkay shiradaas oo intaas aday 3 sano jirto inta way soo kacaysay meel badan baana la geeyay oo Puntland ka tirsan oo Soomaaliya Boosaaso Hargeysa xamar hadda laga keenay Muqdisho waxba waa laga qaban waayay. ilmaha yarka ah biyo bay ku sheegaaneen waladi loo geeyaba. gabadha yarta Ilaahay bay leedahay waxaana waa ka qaban kari weynay walaalaha dal iyo dibadda jooga inay wax naga qalabtaanin baan rabnaa. dal iyo dibadda jooga walaalaha inaan badhigno oo wax naga qabtaanin ilmaha yarka oo saqiirka baan u baahana. anagu ma awoodi karno waxay inta wartiyada ahayd Soomaaliya bay naga dhamaatay. qof walba oo Soomaali ah ayaa indhihiisa ku arka duruufta reerkan haysa in aan isku naxariisano waa dabeecad ka mid ah diinteena. Maxamuud Soofaysane, raadiyaha iyo telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland, Garowe.